Ilaa iyo hadda 16 gaadiidka dagaalka oo ururka Al-Shabaab ay wataan ayaa 70 kiiloomitir gudaha u galay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxaana loo badinayaa in hadda ay ku sugan yihiin miyiga degmada Hargeyle, waxaana xusud mudan in sanadkii 2014 ay kooxda ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku soo qaadeen deegaankaasi. balse waxaa waagaasi ka dhacday iska caabin xoogan oo heer ciidamo badan iyo sidoo kale saanad ciidanba ay dowlad deegaanku ka qabsadeen ururka Al-Shabaab. Haddaba oo aan joogno 2022 ay mar kale soo weerareen. Warar ayaa sheegaya in madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cumar Cagjar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada gaarka ah ee dowlad deegaanka ay hadda ka ambabaxeen garoonka Jigjiga iyagoo ku wajahan gobolka Afdheer oo ay shalato ole ururka Al-Shabaab weerar culus ku soo qaadeen. Haddaba daawade mid ka mid ah dadka deegaankaasi ayaa waramay magaciisana sababo ammaan ayuu uga gaabsaday. muddo markayna mogaayeen bay haddana soo kiciyeen magaaladii bay soo dhex mareen 16 gaari baa soo martay iyo 2 mooto ciidamana aad u saaran yihiin way ka gudbeen magaalada geeskeeda kale fadhiisteen markay fadhiisteen miini iyo waxay ku xabaalayeen waramahaynee haddana way tageen garbaxamur bay usheeda yay haddana fadhiisteen oo baabuurta ku damiyeen garbaxamur waxaa weeye sandarka cilmaran baa laga xukumaa oo unkiya wuxuu u dhaxeeyaa afcadde degmada Hargeyle waxay ka imaadeen wada aati iyo u dhaxaysa yeed oo Sifaan la yiraahdo ka soo galeen soo mareen biyacad bay soo mareen labiilay soo mareen balacad bay soo mareen dhabiilay bay ka soo baxeen halkaas ay afcadda kaga soo baxeen wax ay waxyeello gaarsiiyeen maana maqal dadkuna markay magaalada ay soo galhayaan waa laga baqan hayay oo fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabdiweli Nadaara YouTube-kana subscribe noo saartan page-kana follow iyo sidoo kale like waad ku mahadsantihiin.